الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، markuu ugu horreeyay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh oo noo nicmay nicmooyinkiisa aan la soo koobi karin. rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay wa amaa binicmati rabbika faxadith. ikhwaani, kelimada waxay ku saabsan tahay biidni illaahi tabaaraka wa tacaala inaan saaxiib aan ka dhigano qur'aanka, kalaamka alleh. qofka oo mu'minka waxaa laga rabaa daa'iman wa abadan inuu saaxiib ka dhigto qur'aanka kariimka. nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay iqra'u lqur'aana, qur'aanka akhriya fa innahu ya'tii yowma alqiyaamati shafiican liasxaabihi. nabigeena wuxuu leeyahay xadiidkiisa, qur'aanka akhriya wuu yidhi nebigu. maxaa yeelay qur'aanku wuu imaanaya maalinta qiyaamaha shafiican liasxaabi, dadkii akhrin jiray markii adduunka la joogo, ku dhaqmi jiray, ku tadabburi jiray, wuu u shafeecayaa, erge ayuu noqonayaa. qur'aanka laba le waa ikhwaani, inuu ku dacwoodo ama inuu ku dacweeyo wax ka dhacay ma laha. alqur'aanu xujatun laka ow calayka. waxaa la rabaa inaan saaxiib aan ka dhigno qur'aanka. waxyaalaha oo qur'aanka oo qofka uu lumin karo waxaa ka mid ah oo qur'aanku ku iloobi karo saaxiib xumo. haddaa qof xun saaxiib aad ka dhigatid, qur'aanku waa iloowe. almaru calaa diini khaliilih. qofka saaxiib aad ka dhiganaysa inaad iska fiiri sidaa la raba. saaxiibka xun meel xun ayuu kuu jiidayaa. yaa saaxiib la tahay? waxaa saaxiib laga dhiganayaa qofka kaa dadaal fiican, qofka mar kasta kuu soo jiidayo khayrka. soo bax salaada masaajidka, soo bax waxaan aadaynaa meesha oo khayrkaan aadaynaa. kaasa saaxiib laga dhigta. haddii qof xun saaxiib aad ka dhigatid, adiyo qur-aanka waa isdayseen. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay fii suurati alfurqaan, ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. maalinta oo qofka daalimka gacantiisa uu qaninaayo muxuu leeyahay yaa laytani ittakhadtu maca arasuuli sabiila. maxaa uga dhigan waaye waddadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. yaa waylataa laytanii lam attakhid fulaanan khaliila. hebel maxaa saaxiib aan ugu dhigtay? laqad adallanii can addikri bacda id jaa'anii وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قرآن كان إن لقى هاجروا، قرآن كان إن لقى تقل بربا، قرآن وحال الربا قفك واجمركو أبريو على الأقل وحال الربا إلى آخر سيدان القرآن. وايو قرآن كان وحواي هدي أذيك عن آخرين أو اسكاها هاجرتي بريدا بواش الليل. قرآن وحرمنا inuu qabrigu noogu imaado sida nabigeen mooshe calayhi salaatu wasalaam suuratu lbaqara iyadoo soo hogaaminaysa qabriga kugu imaanay. qabriga waxaa u baahan tahay wehel. qur'aanka marka waxaa la rabaa inaad akhrisid, inaad carruurta aad bartid, in qur-aanka lagu dhaqmo, in qur-aanka lagu tadabburaa la rabaa. markii la akhrinaayo baryahan waxaad arkaysaa guryaha ama baawurta qur-aanaa shidan, waa layska sheekaysanaya. guriga waxaa ka shidan suuratu lbaqara, intana sheekaa ka socda. qof dhahay ma laha qur'aan ilaahay socda naga dami. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisu wuxuu ku leeyahay waidaa quri'a alqur'aanu, qur'aanka haddii la akrinaayo fastamicuu maqla allah waansituu fastamicuu lahu waansituu lacallakum turxamuun. marka ikhwaani, waxaa la rabaa qur'aanka inaan saaxiib aan ka dhigano. waxaa la rabaa in qur'aanka la soo celiyo. waxaad arkaysaa dad badan oo ayagoo yar qur'aanka la soo bartay, waalidiinta casharkooda way ka soo baxeen, dugsigaa lagu geeyey, qur'aanka waa soo xifdisay, qur'aanka adaa lumis. falaa taluumanna ilaa nafsak. qur'aanka soo celi. qofkii qur'aanka aan baranin, waxaa la rabaa qur'aanka fursad gacantaaday ku jirtaa, baro qur'aanka. saxaabatu rasuulillaahi markii oo ay qur'aanka ay baranayeen dad waaweyn ay ahaayeen. niyada ha iska dilin. 60 jira qur'aanka lagu xifdin karaa, 70 jira lagu xifdin karaa. qur'aanka la soo celiyo
qur'aanka saaxiibha laga dhigto waxaa ugu khayr badan qofkay qur'aanka bartay oo dadna sii baraay nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiidkii mashhuurka ah Cuthmaan bin Cafaan khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama waxaa idinku khayr badan qofkii qur'aanka bartay dadkana sii baraay marka ikhwaani waxaan rabnaa qur'aanka inuu noo shafeeco waxaan rabnaa qur'aanka in oo maalinta qiyaamaha agteen uu soo istaago qur'aanka inuu xujo noogu noqdo ma rabno marka qur'aanka ha la akhriyo qur'aanka ha la barto waayo jannada markii la tago qof kasta gurigiis iyo qur'aanku way isku egyihiin waayo markii jannada la galo iqra wartaqi warattil markii la leeyahay oo nabigu noo sheegay xadiidkan qofkaas meeshii qur'aankiisu ku egyahay ayuu gurigiisuna ku egyahay hadaa ka waran jus'amo xifdisan tahay gurigaa jus'amo la jooga adig laakiin waxaa ugu fiican qofkii markii qur'aanka sidii adduunka u akhrin jirtay akhriya lagu leeyahay marka waxaa la rabaa qur'aanka saaxiib aan ka dhigano waad mahadsantihin ikhwaani ilaahina ha laga baqo wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu